إلهي وحولا ليالدونيا إنينو عابدنو وايو إلهي وافتين إلهي وجعيل إلهي ونلول إساقا أيا وحكست أوشرا كيمادين إنك أولين أبوري إساقا أيينو ستوسا ugu jirnaa sida injiilku oranayo isagaynu ku noolnahay kuna soconaa kuna jirnaa ayaa Bible-ka ku qoran haday noqoto hawada aynu neefsano haday noqoto dhaqdhaqaaqa ama awoodda aynu ku dhaqdhaqaaqayno haday noqoto biyaha aynu cabayno haday noqoto cuntada aynu cunayno iyo wax kasta oo wanaagsan oo kale waanu helo waa hadiyada Ilaahay sida ereyga Ilaahay noo sheegino maadaama ereyga Ilaahay uu qeexay inuu Ilaahay yahay jacayl Bible-ka waxa ku qoran إلهي وجعيل وحينو أجنهي إن جعيل كأو إلهي إنه قبا أو يهي جعيل نوع أو سرية جعيل كإلهي يجعيل كبني آدمكو استعلادان وحوي وكل دويهم بني آدمكو جعيل كودو ومدو بني آدم كجعيل كودو حالد بكحرية بني آدم كجعيل كودو وزم بدلا لكن سجعيل كا وإلهي نجي إنه قبا وأبديا ومدان isbedbedelin waa mid weyn sida daraadeed ayaa waxa weeye Ilaahay wuxuu maadaama saa inoo jecel yahay wuxuu inagu amraya ama inaga doonaya ama u qalma inaynu isaga caabudno caabudaada oo ah faa'iidadeena isagu waa ka bixiya jacaylka inaguna waxaynu iyo wanaaga inaguna waxaynu nahay kuwa jacaylkaasiga marka walaalayaal waa inaynu Ilaahay wax kasta ka sarreysiinaa oo siinaa sharafta iyo maamuuska iyo qushuuca uu isagu u qalmo waxyaalaha adduunku waa ku meel gaad si kastoo muhiim u yihiin aakhirkana way baaba'ayaan inamana siinayaan jacayl iyo nolol iyo farxad dhaba inaynu isku halayno waxyaalaha aan sii jirayn ee baaba'aya waxa weeye halaag ayay inoo horseedaysaa Ilaahay wuxuu og yahay inaan waxyaalaha uu abuuray midina aanay baahideena buuxinayn marka Ilaahay walaalayaal wuxuu og yahay in faa'iidadeena ugu dambaysa ee ugu weyn ee ugu muhiimsan inaynu tahay inaynu isaga xiriir la samaysano Ilaaha kaliya ee xayiga ee wax kasto wanaagsan ka yimaadaan ereyga Ilaahay waxa ku qoran marka hore doona boqortooyada Ilaah iyo wanaagiisa oo waxyaalahan kale oo dhan oo kalena waxyaalaha bini'aadamku u baahan yihiin ee adduunka cunto hoy guri waa la idinku dari doonaa walaalayaal marka waxa jirta meel qalbigeena ama nafteena ka tirsan oo bini'aadamka Ilaahay ku dhax abuuray oo Ilaahay mooyaane wax buuxin kara aanay jirin si kasta wax u hayso waaye xasuuso ereyga Ilaahay waxa ku qoran waaye isagaynu ku noolnahay kuna soconnaa kuna jirnaa sababta daraadeed ayuu Ilaahay u doonayaa inaynu caabudno oo aynu ku caabudno ruuxa iyo runta